Cabdilaahi Axmed Maxamed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani warbaahintan kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa soo dhaweeyay go'aankii lagu soo afjaray jabhadii uu hogaaminayay Colonel Caare isagoo sheegay inay tahay talaabo dhinaca ammaanka loo qaaday bogaadiyo hawshii wanaagsaneed ee taariikhiga ahayd ee gobol Sanaag shalay ka dhacday hawshaasi waa ogeydeen waxay ahayd nabar ku furan qarankan si xunna marka hore noogu maartay si hore dhib yar noogu bilowday markii dambena maareyntiisii in badan lagu wareeray ilaahay wuxuu ku guuleeyay ragga dhexda ka guntaday maamul iyo odayaal iyo waayeel iyo salaadiin balaha ee ka hari waayay iyagu dhibaatada iyo aflagaadada iyo mashaakilka iyo hanjabaadu ay ka soo gaadhay laakiin joojin waayay halgankoodii waxay keentay in ilaahay shalay mirahoodii oo ummadda tuso waan bogaadinayaa in awalan qabla kulli shay ilaah baa mahadle alxamdulillahi rabbil caalamiin hawsha iyada ah ee khatarta lahayd ee ciidanka hor fadhiyay ahayd haddii ilaahay aan waxba inagu yeelin labada sano dhow wax ilaah loogu mahadnaqo way 20 mar haddaynu bilownay in hawsha weyn fulino sanadkan bishaaro weyn baa ii muuqata waxa ii muuqda inaynu talaabo hor leh oo wanaagsan u helnay dalka gaar ahaan gobol Sanaag waan bogaadinayaa waayeel ka shaqeeyay waan bogaadinayaa qof walba oo arinta gacan ka geystay ajar aakhirana uu ka helayaa abaal adduunyana uu ka helayaa waxa weeye arrin weyn oo khatar u ahaa dalka khatar ku ah qarannimadu khatar ku ahaa jiritaanku khatar ku ahaa dadka nabadoodu khatar ku ahaa dhaqaalahoodu khatar ku ahaa horumarintooda iyo hay'adahooda iyo waxbarashadooda ayuu khatar ku ahaa ilaah bay naga soo afjaray haday inaga dhamaatay oo si nabada oo sharaf leh oo raali loo kaleeyahay ay ku dhamaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin ragii ka soo shaqeeyay waa mahadsan geesta kalena waxa uu ka dayriyay xaaladda guud ee gobolka Sanaag isagoo ugu baaqay xukuumadda iyo cid kasta ay qusaysaba in laga shaqeeyo horumarka gobolka Sanaag reer Sanaag walaalayaal bari Sanaag bari dayac badan baa ka jira waynu ognahay Sanaag tan dhexe ceerigaabay inta ku xeeranna waynu ognahay iyaduna dib dhac far badan baa ka jira waxa ka sii liita area ceelaf weyn iyo garadaga intaana waa ogtihiin dagaaladan iyo dhibaatooyinkan ayaa halakeeyay oo dadkii way ka hadheen waxbarashadoodiina way ka hadhay marka waxay u baahan yihiin guud ahaan talay u baahan yihiin gobolku wuxuu u baahan yahay guddi la yiraahdo guddiga horumarinta gobolka guddiga barigan anigu gudoomiyaha ka ahaa waa taanu ku guulaysan in aanu jaamacadda Sanaag furno dadka individual waxba looma qaban karo dad wada socda wax qaban kara ummadda yuhunteed in la soo celiyo min bari ilaa galbeed ilaa koonfur Sanaag rag la yaqaan oo koora oo wax qaban karo aqoon leh ee diyaariyaan barbooskii ummadda lagu horumarinta lagu gaarsiin lahaa haday meyd tahay haday laas qori tahay haday garadag tahay haday cilaf weyn tahay haday inta dhexe tahay cidii waxa ka shaqeyn lahayd oo faradhubnaan lahayd ee garan lahayd baahida rasmiga ee meesha jirta ayaa maanta loo baahan yahay haway dunidu waxay ku kala horumartay waxbarasho siyaasad waxgarasho ay dunidu ku kala horumartay sidan iska daboreega ah nin maartay uu cidbinayo waxba lagu ma gaaro waxna lagu ma helo marka guddiga horumarinta waan ku baaqayaa in la nooleeyo oo hadda la abuuro oo maamulka jiraana uu taa ka shaqeeyo horumarka haddaynu sameeyno oo aynu wadadii dhaqaajino waan maqlayay maalin dhaweyd aad iyo aad u hambalyeynaya runtii in la keenay qalab fara badan oo wadadan Sanaag wax ka qabanaya taana waxaan leenahay ku bogaadinayna hore ugu socda wadadan Sanaag shaqo xoog leh u baahan tahay shaqada u baahan tahay way ka badan tahay inta hadda la sheegay laakiin sida ay imika u socotay si ka badan ayaanu doonaynaa insha Allah inay socoto Ali Maxamed Jaamac Ali Fahad wararka saa Hargeysa ma ogtahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxa kamid ah Afrika Asia qaybo kamid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in la kadib kobaad frequency-ga ku soo baxa adiga oo jihana u wicwicin dhiishka kobaad frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidin adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil
haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida